يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كلنتي وعنو ونكسن بإذن الله جل وعلا وحان شعلهاي ما أنت إنان هلكن إذن كسو تبيو قصو أظهر مقشين وآن كفا في برتيدا فيسبوك سندي لبادكون إيا شانيو طبانكا وقتiga oo aan joogay dalka Zambia maadaama qisada muuqaalkeedu tayadu ay aad u liidatay walaalo badanina ay codsadeen inaan dib ugu soo celiyo waxaan jecelahay insha Allah inaan halkan idin ka soo celiyo qisadaasi waxa ay ahayd waxa ka sheekeeyay sheekh la yiraahdo Abdul Muhsin Al-Ahmed ka shaqeeya dhakhtarka militariga ee dalka Sacuudiga magaalada Riyadh sheekhu waxa uu yiri maalin maalmaha kamid ah anagoo dhakhtarka joogna ayaa waxana loo keenay nin xanuunsanaya ninka xanuunka hayay waxa uu ahaa wadnaha albaabadiisa ay halbowlayaashu ka soo galaan mid kamid ah ayaa xidhnaa oo ciladii ay kaga jirtay waxa uu yiri sheekhu ninkii qaliin baan ku sameeynay qaliinka aan ku sameeynay uu guul daraystay isaga oo xanuunkii sidii ugu jira oo koomadii ku jira ayaa dhowr maalmood kadib waxa aanu aragnay in beerkiisii uu soo aruurayo oo ciladii ku timi maalmo kadib waxa ugu biiray in kaliyihiisuna ay hawlgab noqdaan maalmihii dambe mise xanuun baa iyana mindhicradii kaga jira kuwii waaweynaa iyo kuwii yaraaba subxaanallah waanu yaabnay ninkan xanuunada faraha badan ee isu biirsaday ee sida degdega ah ku dhacaya waxa uu yiri dhowr maalmood markuu ninkii sidii ahaa oo uu ku jiro qaybta dhakhtarka ee emergency-ga ayaa maalintii dambe uu soo miirsaday uu yeeray wuxuu yiri sheekhow kaalay waan u imi wuxuu ii qoray telefoon waxa uu yiri lambarka la hadal waxaanad ku tiraahdaa ii imow wuxuu yiri telefoonkii baan qabsaday waxaan la hadlay ninkii waxaan walaal hebel soo maaha nin ku jira dhakhtarka ayaa ku doonaya oo hebel la yiraahdo waxaan ka codsanayaa inaad u timaadid ninkii magicii markii uu maqlay ayuu wuxuu yiri as'alu Allah an yu'adhibahu fi dunya wa fi al-akhirah ilaahay waxaan weydiisanayaa in uu ku cadaabo adduunka iyo aakhiraba waxaan ku yiri subhanallah war ilaahay ka baq miyaanad qof muslim ahayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka wax cafiya ayuu jecel yahay waxa uu yiri sheekhow muddo 3 sanadood ah aniga iyo ubadkaygu waxa aanu ku habaaraynay ninka inaanu maalin kasta niraahno ilaahayow adduun iyo aakhiraba ninka ku cadaab ayaanu lahayn buu yiri waxaan ku yiri qisadiinu maxay tahay ninkani muxuu idin ku sameeyay waxa uu yiri ninkani waxaanu is qabsanay nin jaarka yaga ahaa ayaanu guriga isku qabsanay dhul aanan ugu deganaa dabadeedna ninkaasi gardarro iyo markaa xaq darro iyo dhulkayga igu qabsanay aanan ugu lahaa ninkani wuxuu ahaa marxaati beenaalihii maalinta marxaatiga u furay marxaatigiisii ayaana si sharciya dhulkayga la iga wareejiyo la iga qaaday oo dhul aan la dhigay sidii baan u habaaraynay buu yiri ilaahay waxaan ka baryayaa in uu adduun iyo aakhiraba uu ku cadaabo sheekhi wuxuu yiri waan argagaxay wax aan ku sameeyo waan garan waayay qisadaasi walaalayaal waxa ayna tusaysaa habaarka qofka la dulmiyay ee xaq darrada loo geystay ee dulmiga iyo waxyeelada iyo marka gardarrada lagu sameeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baryada uu baryo iyo habaarka uu qofka habaaro dhulka inaanu dhacayn رب سبحانه وتعالى قرآنك وحاو كيري ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلهي وحاو يري همالين inuu ilaahay moogan yahay dadka dhaalimiinta dulmiga sameynaya waxa ay sameynayaan nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa ka sugan
xadiidkii markii uu la dardaarmayey mucaad ibni jabal oo uu u diray yaman waxa uu ku yidhi wattaqi dacwata almadluum fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. mucaadow iska ilaali habaarka qofka madluumkee la dulmiyey, waayo xayndaab u dhaxeeya ilaahay iyo ducada in la aqbalaa ma jiro. rabbi subxaanahu wa tacaala daalim kasta dulmiga uu sameeyo walaalayaal wuu ka aargoynayaa. haddii uu adduunka ugu soo qadimi waayo, ugu soo hormarin waayo, sida rabbi subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu ku tilmaamay, aakhira ayaa loogu dibdhigayaa. nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga soo wariyey in uu yidhi 3 baryo ama 3 duco lama celiyo oo waa la ajiibaayo, shaki ma laha. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن. waxaa ka mid ahayd dacwة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. habaarka waxaa ka mid ahayd habaarka uu qofka madluumkii habaaro, qofkii dulmiga ku sameeyey uu habaaro. waxaa ka mid ahayd waalidku habaarka uu habaaro inankiisa. waxaa ka mid ahayd ducada uu markaa ducaysto qofka musaafirka ee safarka ku jira. walaalayaal dulmiga aynu ka digtoonaano, ilaahay subxaanahu wa tacaala aynuga baqno. ciqaabtiisu adduun bay soo qadintaa oo soo degdegtaa, aakhira ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku reebaa. dulmigu xasanaadkii qofku uu sameeyey iyo ajarkiisii iyo cibaadaadkiisii oo dhan buu cunaa. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala aynuga baqno kana digtoonaano arrintaa. rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa qof kasta oo daalima inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala solan siiyo inuu toobad keeno inta uu dunida joogo oo dulmiga uu ka soo noqdo. wasali allaahuma wasalama calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. fadlan si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada dambe guji barta cas oo ku dhufo subscribe. mahadsanid.